Asalaamu calaykum asxaabtayda kusoo dhawaada channelka. Halkan waxaan ka hadlaynaa dareenkayga iyo sida ciyaalka aan ku caawin karno inay ka hadlaan dareemahooda. Dareemaha in laga hadlo oo caruurta la baro waa waxyaabo aad u muhiim ah. Mataqaana waxaana la dhahaa emotional intelligence. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ta naga ilaawin insha Allah. Haddii aad tahay qof nagu soo noqonayo asxaabteena kamid ahna waxaan ku leenahay aad iyo aad u mahadsantahay soo noqodkaaga. Like iyo comment naga ilaawinin insha Allah. Halkan marka waxaan ka arkaynaa warqada aniga sameeyay in ciyaalka ku caawiyo inay dareemahooda igu soo gudbiyaan. Waraaqahaasna waa la share gareeyay walaalaha igu jira WhatsApp group-kayga insha Allah. Waana la share gareyn doonaa walaalaha email-ladooda aan haysto insha Allah. Marka haddii aad u baahan tahay ama email-kayga la soo xiriir ama WhatsApp group-ka ku soo biir insha Allah. So halkan waxaan ku qoran waxaan dareemayaa iyo dareenkan waxa iga keenay waa marka taas waa su'aal. Marka ilmaha badanaa markay dareensan yihiin qaabay kuugu soo gudbiyaan ma yaqaanaan. Badanaa way ooyaan. Haddii ooyaana martaqaana dadka qaar ma dhageystaan ba mataqaana xanuunka hayo ama ooyinta sababtay uga imaatay iyo sima waa weydiiyaan. Marka waxaa mar walba muhiim ah horta marka ugu horeyso inaan ciyaalka accept gareyno emotion kasta ay noola yimaadaan, ama farxad ha ahaato ama ooyin ha ahaato ama murugo ha ahaato ama qosol ha ahaato ama xanuun ha ahaado. Wax walba ay la yimaadaan markaan ogaano oo iyagana ay og yihiin in dareenkaas ay dareemayaan magac hebel lagu tilmaamo, iyagana aad ay u caawinaysaa, annagana aad ay noo caawinaysaa. Haddii maaragtay ciyaal yaryar ah haysatid oo 2 sano bar ama 2 sano 3 sano badanaa maanta oo dhan emotionskooda aad u isbedbedelaya, dareemahooda aad u isbedbedelayaan. Marka waraaqahan oo kale ciyaalkaas waxyaabo ay ka caawinaysaa waxay tahay dareenkay dareemayaan inay markii ku sheegaan badanaa way ku sheegi doonaan marka warqadan hor dhigtid. Adigana aad ka caawisid hooyo inaad sidaan dareentid waa caadi, sidaan waxa u dareemaysid because sidaan kugu dhacday ama dareemahaaga adiga ii soo gudbi. Marka isfahankiina aad u fiicnaanayo insha Allah. Ilmaha markii lala hadlo emotional intelligence-koodana laga dhiso waxyaabaha hadhowti markay weynaadaan bulshada inay soo dhex galaan u fududeynayo iyo dad kale inay la dhaqmaan soo fududeynayo waa maanta markaan sii barno qaabkay emotionally ula dhaqmi lahaayeen walaalahood iyo reerkooda iyo naftooda insha Allah. hadduu Ilaahay yiraahdo marka warqadan waa idin la soo wadaagi doonaa. Isticmaala meelay ciyaalka gaaraan ugu dhajiya mar walbana dareen walba ay haystaan ka faa'iideysta inaad dareenkaas ay kula wadaagaan adigana aad ka caawisid. Mararka aadan ka caawinin waxaa dhici karta inayna hadhowti inay ka xishoodaan ama inay qarsadaan dareenkay dareensan yihiin markaan ay caburmaan. Waxyaabaha marka dadka depression-ka ku rida markay weynaadaan waxaa kamid ah markay yaraayeen aan la dhageysanin ama dhibaatooyinkay marayeen aan lala wadaagin ama qaabay dadku la wadaagaan ayna garanaynin. Waxyaabo badanaa jira marka adiga ilmahaaga hadda ka caawin kartid da' walbay jiraan. Halkan marka waxaa ku soo qoran waxa iga caawin karo dareenkan waa because iyaga way haddii fikri karaan way ku sheegayaan, haddii kalena adiga ka caawinaysid waxa ka caawin karo. Marka hadda example yar rabaa inaan siiyo 2 ilmood oo walaalaha wax kala qaadanayaan. Marka mid kamida kuma faraxsan in wax laga qaato isaga wixii lahaa. Marka wuu xanaaqayaa sawirka marka tusto waxa weydiinaysaa hooyo maxaa kugu dhacay sidee dareemaysaa? Wuxuu ku leeyahay hooyo waa xanaaqsanahay ama aabbo waa xanaaqsanahay. Markuu ku sheego waxa leedahay hooyo xanaaqa maxaa ka keenay? Wuu ku sheegaya marka wuxuu ku leeyahay walaalkay wax iga qaatay waxaasna kuma faraxsani. Marka adiga waxa leedahay inaa xanaaqdid wax caadi ah waaye. Marka ugu horeyso inaad horta neef qaadatid hooyo shaydaanka iska naartid adiga caawi markaas a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim aan dhahnaa markaan xanaaqno kadibna waxa leedahay hadda maxaan sameynaa marka maxaa ka caawin kara dareenkan? Wuxuu ku leeyahay markaas ani alaabtayda in la ii soo qaado isla markaana adinkoo tartiiba labadiina isla socdo walaalkii markaas midkii wax ka qaata u taga and then si aayaraha u weydiiyo alaabtayda ma ii soo celin kartaa. Waxyaabaha marka meeshaas aa ka sameeyay maybe waqti kugu qaadanay da'da ilmahay ku xiran tahay waqtiga adiga haysay ku xiran tahay laakiin mar walba intaas yar oo aad caawinaysid ilmahaaga waxaad ogaataa lifetime noloshooda inta soo socoto wax badanaa ka saxday intaas yartaa. Marka dheedheel ha u qaadanina insha Allah. waxaan rajaynaynaa ciyaalka waa ogahay it's not easy ma fududa inaad hooyo tahay ma fududa inaad waalid tahay laakiin insha Allah mar walba khayrka u niyeysta waqtiga ciyaal ku dhimanaysin insha Allah
waxaan rajeynaynaa inaa walaalaha kale lasii sheergaraysiin hadduu ilaahay yiraa. waa inoo mar kale iyo video kale insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.